السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحان سلام هيا meel kasta ay joogaan ummadda muslimiinta qaasahan kuwa Soomaaliyeed oo muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan rabaa maanta inaan meeshan inkaga soo jeedso barnaamij ku saabsan dhalashada hijriyada sanadka cusub runtii waxaan isleenahay waxaa mudan su'aal in la isweydiiyo sanadka cusub ee dhalashada bisha hijriyada waa maxay waa maxay waxyaalaha loo xusi laayahay bishan sanadka waxa loo xusi laayahay dadka muslimiinta ah ay u xusi laayihiin anagoo aragnay inayba sii baaba'dayba qof kasto muslim hadda weydiisid hadda bal ummadda Soomaaliyeed hadaan weydiiyo waxay ku leeyihiin ma garanayo bisha muslimka maanta intay tahay hijriyada bisha taariikhda muslimka intay tahay ma garanayo ku leeyihiin marka waxa arkaysaa in dadka muslimiinta ay ka sii dhamaanayso taariikhdoodii waqtigii ay diinta islaamka maaragtay iyo hijriyadii inay ka sii dhamaanayso ayaad arkaysaa waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego meel kasta ay joogaan waliba gabdhaha iyo aabayaasha iyo hooyooyinka walaahi waxaa idinka rabaa inaad taariikhda islaamka aad guryihiina ku qorataan ilmihiina aad bartaan taleefanada ugu seef gareysaan maxaa jira dadku waxaa la rabaa inay soo afka hijriyada muslimka inay wax bartaan dadka ay bartaan taariikhda islaamka inay bartaan ayaa la rabaa annaga waxaa hadda ku oranaa afkana Soomaaliga waa iska yahay oo waan iraahnaa 1 iyo 2 iyo 3 sanadka waa sanadka bishan waa 2000 iyo intaas aan leenahay 2000 iyo intaas 2001 aan leenahay waa sax laakiin waxaa ka sii fali badan inaa ogaano haddii Ilaahay ku reeyahay taariikhda islaamka walaal maanta hadaan idin falaqeeyo idin sheego maalinta waa maalin Isniin ah hijriyadu waxay maraysaa kowdii 1443 ayay maraysaa hijriyada waxay maraysaa waa kowdii waa maalin Islaana waa kowdii 1443 hijriyada ayay maraysaa marka waxaan rabnaa inaan saas u aqoonsano waxaan rabnaa ilmaheen inaan barno waxaan rabnaa taariikhda inaan maartay ku hoos dhigno midaan kale oo hijriga oo midaan kaleeto oo taariikhda caadiga ah in maartay taleefanada inta la soo dejiyo lagu hoos qoraal rabaa si ay ula socdaan ilmaha taariikhaha islaamka sidii ula socdaan maartay islaamkii wanaagsanaa si ula socdaan marka waa in loo baraa taariikhda islaamka in la baro maalinka marka maantay maalin caadi maahan waxay isku maartay isku darsatay in rasuulullah sallallahu alayhi wasallam maanta uu dhashay inay tahay maanta uu dhintana inay tahay taariikhdii hijriyadana inay tahay oo taariikhda ay sheegaysa maantay oo cusub tahay koow tahay marka meesha aan sanadka kale bisha aan ka xusno way muslimiintu ay xusi laayihiin bishooda muslimka hadda waxaa xusnaa anaga 2007 waxaan xusnaa hadalku 2000 2060 iyo 7 waxaas la xusaa taariikhdaas la xusaa laakiin maxaan u xusin laanahay taariikhda islaamka oo maanta hijriyada ay tahay kowda 1443 ay tahay maxaan u xusin laanahay balaa is weydiino waxaan u xusin laanahay rabnaa marka warka sii badin maayo waxaan rabaa in la baro ilmaha taariikhda in la baro inaad ugu qortaan maaragtay meesha maaragtay taleefanada ugu qortaan in dadka waaweynka ku dhaqmaan oo taariikhda islaamka ay maaragtay ku dhaqmaan oo ay taariikhda kale taariikhdan labaduba ay isku bartaan oo waliba la sii fali badiyo taariikhda islaamka sababta taariikhda islaamka waxa asxaabihii iyo dadkii wanaagsanaa iyo diinta islaamka dadkina soo gaarsiiyo dhan baa ku tirsada annagu marka islaam baan nahay taariikhda islaamkana ma naqaano waa dhibaato maanta inaan sheegayno dad badan baan weydiiyay inaan maanta sheegayno taariikhda islaamka maanta hijriyada intay tahay wallahi waa dhibaato Soomaaliya waliba Soomaaliya dhanba markay noqoto muslimiinta dhanba xataa u soo hoyato waaye marka walaalayaal aan ku dadaalno taariikhdaas in caruurteena aan barno guryaha looga dhaqmo guryaha laga baro maaragtay inkastoo dadka carabiga aysan badanaa carabida luqadda carabiga ku dhaqmaa aan ku dhaqmin ama ku hadlin
ay maaragtay tahay dadka baaba-ashay laakiin dadka luuqadda carabiga ku hadla taariikhda islaamka way ku dhaqmaan waana haystaan waana ku tirsadaan marka waxaan rabnaa inaan maanta laga bilaabo guryaheenna aan kowdii hijriyada 1443daas aan meeshaas kasii hana qaadno maanta iyadoo isniin ah maanta weliba rasuulkeena sala allahu calay wasalam markuu dhintay ah rasuulkeena sala calay markii la dhalay ah marka intaasba ay tahay marka oo saas aan ku aqoonsano hawsha halkaas aan ka wadno walaalayaal aan ilmaha aan baranno taariikhda islaamka annaguna aan ku dhaqanno sidaasaan kula dardaarmahayaa warku mar uu sii meeshiis wuxuu ku fiican yahay in laga aado muhiimadda la aadaya waxa waaye in taariikhda islaamka aan baranno muslimiin haddaan nahay inta codkayga maqlayso isna oo u maqlaysa ina af soomaaliga aan ku hadlayo taariikhda islaamka hala barto ilmahana hala baro guryahana hala baro walaalayaal saasaan insha Allah idiin soo gudbiyay khayr badan baan idiin rajeynayaa xarunta markasta waxa idin la taagan tahay Dictorey Safiin xarunta Dictorey Safiin markasta waxa idin la taagan tahay waxyaalo muhiim ah marka oo hadii al kuurahay dhaqanka waxay la taagan tahay shaqo la'aanta waxyaalaha looga hadlo waxay la taagan tahay maaragtay waxyaalaha dhaqanka iyo maaragtay iyo la talinta dadka marka inaad committee-giina hoos noogu soo qora waxyaalaha u baahantihiin hoos noogu soo qora aad iyo aad baa idin salaamhayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh